السلام عليكم أحمد علية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد علية waxaana noo sheegay inaad xogagaal u tahay oo dadka maaragtay dadkii taageerayay aad tahay dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay maaragtay Turkiga dhibaatadii ka dhacday masiibadii ka dhacday gaar ahaan dadka reer Djibouti sidee wuxuu jiraan dadka reer Djibouti tirakoob ma laga hayaa maanta وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. horta waxay jiraan meesha ay reer Djibouti degnaayeen waa xabad abaartoomo ardayda reer Djibouti degnaayeen iyo yurta la yiraahdo yurta ardayda lagu talagalay bay degnaayeen yurtadaas waxaa degnaa sagaal ardaya كويس degnaa sagaalka ardaya laba u baaray Soomaaliya inta kale dadooda kale waa reer Djibouti waaye iyo waxa kale degnaa abaartoomo kalena waxaa degnaa gabdho 5 gabdhood 3 reer Djibouti iyo 2 gabdhood oo reer Soomaaliya waaye marka meeshan gabdhihii mid quraata laga soo saaray gabadhaasina way caafimaad qabtaa wiilashiina waxa laga soo saaray 3 laba way dhinteen Allah naxariisto midna uu nool yahay oo dhakhtar ku jira waaye tirada marka la isku geeyo imika sagaalkii inaan waxaad iga tidhi waxa laga soo saaray 3 marka waxa maqan 6 baa maqan oo imika la garanay wali la garanayna waxa xaaladii ku sugan yihiin inay nool yihiin inay dhinteen oo meeshuna jawiga meeshana ma saacideeyaan la sii wado wixii oo markasta la qodo oo meesha jawiga xoog uu qabow yahay roob iyo baraf ka daaya marka markasta la qodo qof la soo saaro ma hadana dib baa loo joojinaa hadana dib baa loo wadaya waaye marka saacade waxa la joogaa waqtigii laga joogaa imika waa 3 cisha laga joogaa marka way iska yar tahay maaragtay dad wax nolol lagu gaaro way iska adag tahay inkastoo dad nolol lagu gaaro laakiin hadana darajada lagama quusan xaqii hablihiina waxaad iga tiri 3 hablood waxa laga soo saaray xabad hal gabadha quraata laga soo saaray maca kuwii Soomaalida ay ku reer Djibouti ba gabdhii reer Soomaaliya gabdhii reer Djibouti hal gabadha quraata laga soo saaray oo reer Djibouti ba gabadhaas laga soo saaray isoo Soomaaliya wallahi gabadha wali lama xaqiijinin reer Djibouti tahay inay reer Soomaaliya tahay laakiin waan soo ogaan insha Allah inta Allah waaye marka isku wada geeyno dhimashada imisa lagu qiyaasi karaa imika waxa la hayo waxa dhimasho waxa la hayaa imika 2 wiil oo quraata inta maqan imisa lagu qiyaasi karaa inta aan war laga hayn may maqlaysaa wala ha inta maqan ee imika war laga hayn imisa lagu qiyaasi karaa imisa lagu qiyaasi karaa inta maqan lagu qiyaasi karaa meesha 6 wiil iyo 4 gabdhood marka la isu geeyo 10 qof baa maqan waaye dadkii kaleete ee waxaas waa kuwii dhalinyaradii iskoolada dhiganayay dadka kaleete ee dadkii maaragtay dad reer Djibouti oo dhuka deganaa ma jirtay may gobolka ka dhacay gobolka Guldurigu ka dhacay gobolada Gaziantep iyo Ikram Marash iyo adana iyo Diyarbakir goboladaas ka dhacay Guldurigu wax degan ma jiro reer Djibouti degan ee arday uma joogtay reer Djibouti Amara caasimada Ankara iyo Istanbul iyo dhukaas degan famiyadu waaye dadkii dad badan baa yaan ka aragnay xagga maaragtay baraha bulshada oo maaragtay ambassadorku soo dhigay oo la leeyahay waxa laga soo qaaday dhukaas waxa la keenay Ankara dadkaas oo dhan waxay ka dhiganayeen Ankara imisa lagu tilmaami karaa dhalinyarada ka dhiganaysay goobahaas imisa lagu tilmaami karaa wallahi dhalinyarada reer Djibouti tirakoobkii u dambeeyay 100 iyo xoogaas bay hayeen intii u dambeysay la soo tirakoobay ardayda ka dhiganaysay jaamacadda inta badan waa la soo qaaday xalay toolasaad kuma qaleysay safaaradu way soo qaaday Ankara ay dejiyeen waaye Ankara Marash bay ka soo qaaday Ankara dejiyeen in baa ku hadhay intaasina waxay saacidayeen in madax maqan iyo dadka maqan in la soo guro in dadka maqan reer Djibouti in la soo badbaadiyo bay saacidayeen waaye 61 baan ka arkayay baashashka ay soo qortay maaragtay ambassadorku soo qoray 61 marka haday 100 iyo xoogaa ahayd waxa maqan baa la oran karayaa ilama 30 Soomaa ilama 40 30 jaamacadda marka jaamacadda inta arday ay qoran jaamacadda la qoray 100 way gaaraysaa laakiin waxa dhigi karta arday waxa jiray oo qortay oo gobolka joogay oo wali iman oo arday iman oo jaada dhiman
oo laakiin isqortay way isku dabaridka dadkaas waayo dadkii markii meeshii ay burburtay dadka waa in la taageero ilama haadan ma jirtaa dhalinyaradaas amba dadkaas halkaa laga soo qaaday hab maaragtay loo qorsheeyey oo la dejiyey ma jirtaa oo lagu taageerayo ha horta way soo dirtay safaaraddu aqal way soo dirtay laba gaari bay soo direen way soo qaadeen ardaydii reer Djibouti iyo reer Soomaaliya wixii isugu jira oo dhan way soo qaadeen waa la dejiyey ardayda guryaal baa la dejiyey intii kale ee dadka garanaysay caasimada Ankarana ee dadkooga familkooga ama qaaribtooda deganaayeen qaaribtooda iskaga degeen intii kalena ee bilaa guri ahaydna guryaal baa la dejiyey oo dee muwaaqato la garanayo waqtiga ay sii degnaan doonaan amba lama soo sheegin inta ay sii degnaan doonaan ku yara Soomaaliya sidaas leeg meel baa la dejiyey wixii kale dadka garanayeen dadkoogii iskaga tagay way jaamacadihii ay dhalinyaradu dhiganaysay maanta sidee yihiin jaamacadihii way waxay soo saareen qaraar ah wali waxay yiraahdeen jaamacadaha dadka barakacay baa jaamacadda lagu xajinaya marka jaamacadda lama dhiganayo marka waqti ina jaamacadda la sii wadayo iyo ina online lagu sii wadayo ina la tagayo qaraar suga bay yiraahdeen muddo 2 toddobaad waya waxaa kaloo na soo gaadhay in xagga aabbayaal cabanaya oo dhalinyaradii la dejiyey hoteelka xalay toole in maaragtay ay biyo iyo baad ayna helin taa maxaad ka og tahay horta waa taas waxa weeyaan ardaydii meeshii waa la dejiyey laakiin xilli dambe un baa loo keenay meelaha baa la odhan karaa 6dii meelaha 7dii ilaa baa la odhan karaa cunto loo keenay laakiin intii hore waxba looma keenin xalay subaxdii waa la keenay waa la dejiyey bas khalaas wax kale oo loo keeno caafimaad ma jiro waya laakiin markii dambe xilli maqribkii meelaha 6dii gaadhisay baa cunto loo keenay wixii kalena magaaladu waa Ankara waa iska nabad way iska soo qaarkii ay soo iibsadeen laakiin wax caafimaad oo kale oo soo gaaray dadka bis dijitaanka ma jiro ma jirtaa ururo reer Djibouti amba ururo maaragtay samafala oo dadkan maaragtay gacanta ku haya ma jirtaa wallahi ururo samafala oo waxa ma jiro bas dadka waxa kale oo soo kaxeeyay safaaradda meel fiisay oo dadka urur kale oo yimaada meesha ma jiro way waxaan maqlaynay dhalinyarada dhar baa loo ururinayay maaragtay hababka wax loogu ururinayo dadka kaleeta ee qurba joogta ah kaleeta ma la xidhiidheen inigu wallahi wax qurba joogo nala soo xidhiidhay ma jiro waxa waa maqlayay dad arday degan oo gobolka Jankeri la yiraahdo baa dhar ururiyay busta iyo dhar ururiyay jaakeedo dadkii inta kasta ka soo baxsaneen alaabtii ma haystaan mogtahay sax marka wixii meel ku sugan yahay cid uu soo gaaray wali ma arkin laakiin waa la sheegay in wax la ururiyay way maxaad fariin u diraysaa dadka reer Djibouti amba kuwa qurbaha jooga amba xaafadihii maxaad fariin u diraysaa dadka maaragtay see loo garab joogsan karaa dadka kale waxa loo garab joogsan karaa ardaydan soo barakacday inaad la caawiyo dhar ma haystaan iyo cuntooyin waxa ma haystaan bar cuntooyinkii waxay cuni lahaayeen iyo waxay dhar xidhan lahaayeen oo qabowga Ankara zaid buu qabow yahay xumanaya -6 marka waxa lagu caawiyo dadka way halka meelaha loo soo marinayo iyo wax aan maaragtay nidaamsan ma jirtaa oo meel dadku ay wixii doonaya inay taageeraan meelo ay wax niigu soo hagaajiyaan ma jirtaa meelo wax ugu soo hagaajiyaan ardayda waxa jira waxay leeyihiin baalki maamulka ardayda baa lagu soo hagaajin karaa oo la oran karaa ninkaas baa loogu dhiibi oo wixii hadhowna mas'uuliyadiisa ninkaas baa qaaday ninkaas baa loo soo marin karaa baa oran karaa way waxaan isku daynay inaan maamulka maanta la xidhiidhno run ahaantii way noo suurto geli weyday oo telefoonadu way bixi la'aayeen dadku ma dhibaatooyin baa jira xagga warisgaadhsiinta amba telefoonada halka warisgaadhsiinta waxa horta gobolada kale waa iska caadi laakiin goboladu dhibaatadu ka dhacday khadku adag yahay khadku xoog buu adag yahay khadka hadday noqoto iyo hadday kool caadi ah noqotoba xoog buu adag yahay qofkii saad ku heshid marmar buu ku galay marmarkaasna qofka laga yaabo inuu mashquulsan yahay ma noo sheegi kartaa sidaan annagu idaacad ahaan aan u dhigno xagga maaragtay meelahaan ka baahinayno maaragtay dadka lala xidhiidhi karayo haddii maaragtay gurmad ay ku tahay iyo haddii maaragtay warar la weydiinayaba inamadaas ma jirtaa meelo loogu hagaago oo qadkooga
inamada khadkooga meelo loogu hagaago ma inamada gobolkii inamada meesha ay joogay caafimaadka u baahan waa nin waa ku soo diri lambaraan waa ku soo diri inamada meesha jooga iyo caafimaadkooda way xoog ayaad maadsantahay adu halkeed joogtaa walaal anigu imika haadan waxaan ku suganahay Ankara waxay dadkii la soo qaaday baan ku jiray Ankaraan jooga xoog ayaad maadsantahay walaal aad mudan kaas waxa uu ahaa inamadii xalay la soo qaaday sida uu isbaadka noogu sheegayo oo maaragtay jooga magaalada Ankara waxana uu maaragtay warfaafintaas naga siiyay sida ay wax u jiraan iyo maaragtay dhibaatooyinka ay dhalinyarada reer Djibouti ee halka joogta ay ku sugan yihiin